asxaabta ku soo dhawaada Runsheeg Media Network asxaabay waxa soo hadlay xubnihii beesha caalamka qaasatan safaaradda Ingiriiska midowga Yurub ama European Union iyo safaaradaha Norway Poland oo dabcan ku wada jiro midowga Yurub Ingiriiska oo soo hadlay isagu kama mid ahan midowga Yurub Mareykanka fariin wuxuu soo saaray dhexdhexaadnimo oo uga digayo xukuumadda iyo mucaaradka wixii kicin kara qalalaase in laga fogaado lisna xakameeyo waxaana soo hadleen ilaa hadda Turkiga sooma hadlin qaramada midoobay sooma hadlin taas marka waxay muujinay xubnaha beesha caalamka doorkoodu wuxuu ku saleysan yahay kaliya in dhexdhexaadin iyo gogol nabdoon la isku yimaado la wada hadlo dooda u dhaxaysa dawladda iyo mucaaradkana runtii hanaan ama process wax lagu xaliyo la yimaado labada dhinacba si arrimaha taagan hadda muranka ka taagan yihiin dawladnimada Soomaaliya ay isku haysto isku la xaliyo ama meel isku la dhigo marka mucaaradku waxay ka faa'iideysanayaan dabcan sida aan ogahay arrimaha taagan socialka dawladda dhankeeda waxa ka jiro xabaacsanaan ku aadan arrintaas marka horta beesha caalamka Soomaaliya kuma lahan qasab kaliya waxay ku leedahay door dhexdhexaadin waxayna Soomaaliya ka caawisaa dhanka maaliyadda oo ciidanka African Unionka ay joogo Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho ayay maaragtay muxuu ahay bixiyaan dhaqaalahooda budget supportina waa u sameeyaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee dawladda darteed marka door waxay ku leeyihiin saacidaad iyo door dhexdhexaadin iyo tala soo jeedin horta saas in loo fahmo ayaa aad muhiim u waxa marka aan isleeyahay ama ay tahaybo xaqiiqdu ay tahay aan isleeyahay xataa maahan xaqiiqdu waxay tahay mucaaradku waxay ka faa'iideysanayaan dawladda ficiladeeda taasana waxay hadda soo dadejinayaan in xubnaha beesha caalamka ay soo saaraan warqado oo ay ku doonayaan in la isku yimaado gobol nabdeed hadallo iyo luqado adag ay isticmaalayaan marka maxaa kamid waxyaabahaas waxaa kamid dawladda waxay ku eedeeyeen in ay sameynayso maaragtay muxuu ahay xarig in ay sameynayso تعديه iyo in ay xuquuqdii muwaadiniinta duusinayso waa sida ayaga ay sheegayaan waay maxaa marka hadda dawladda la gudboon talada aan dawladda si lahayn waxay tahay horta marka hore dadka hadda u xiran dawladda dhamaantood in la sii daayo ayaan aniga ku baaqaa markii la sii daayo ay ku jirto gabadhii maanta aan ka hadlay arinteeda Saacadiye Bajaaj in la sii daayo oo dhamaantood xuriyadoodii la siiyo ayaan ku baaqaa koow laba waxaan ku baaqaa dawladda inay warqad qorto u dirto xubnaha maanta warqadaha soo saaray beesha caalamka una sheegto inay u diyaarsan tahay wada hadal iyo inay timaado miiska wada hadalka saddex waxaa la rabaa inay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka inuu soo duubo muuqaal oo kaga hadlayo inuu soo dhaweynayo gobol nabdeed ama nabdoon oo xubnaha mucaaradka iyo asaga ay ku wada hadlayaan wixii tabashaan runtii wada hadal iyo isqancin iyo isu tanaasul lagu wajahayo hanaankaas kadib inta markay dawladdu sameeyso xubnaha beesha caalamka waxa markaas kadib ay sii wadi doonaan taageerada dawladnimada Soomaaliya qaasatan midowga Yurub maxaa yeelay waxaad ogtihiin gabadha midowga Yurub ku matashay Soomaaliya kal hore inay la kulantay madaxweyne Xasan Sheekh waxayna sheegtay hadda ogtihiin hadii kale in ay sii wadayso taageerada midowga Yurub sii wadi doonto dawladnimada Soomaaliya marka xubnaha beesha caalamka waxay runtii aad u soo dhaweynayaan amniga Soomaaliya ay haysato maanta qaasatan reer Muqdisho amniga ay haystaan iyo nabadda ay runtii ku naaloonayaan taasoo bogaadin iyo ammaan runtii ay ku muteysatay dawladda hadda joogto marka sidaa darteed dawladdu waxa laga rabaa arrimaha dhanka maaragtay muxuu ahay bulshada ee haysto
ay u horeyso xariga inay joojiso in dadka hadda xiranna la sii daayo ay gabadhan Sacdi Bijaaj ku jirto in gogol nabdeed lagu baaqo iyo in beesha caalamka la engage gareeyo loona sheego in dowladdu ay ku baaqayso gogol nabdoon oo ay mucaaradka iyo dowladdu isku hor fadhiisanayaan ayagana ay wada hadlayaan laakiin beel caalam aysan soo dhex gelin Soomaali la isaga dhex baxo beesha caalamkuna ay korjoogteen ku samayso iyo la socod dhageysiga wixii ka soo baxo doodaasna ay halkaa kasii ambaqaado sidaa darteed ayaa runtii muhiime si dowladnimada Soomaaliya hanaanka hadda ay ku socoto ay kusii socoto wada hadalku noqdo mid runtii dhinacyadu ay ku qancaan taas ayaa runtii habboon oo aniga aan soo jeedinaa tan kale oo aan rabo inaan ku daro waxay tahay arrinta mudaharaadyada loo madlan yahay 4 bisha mudaharaadyadaas waxaa la rabaa in dowladdu ay ayada iska saarto mas'uuliyad iyo xil maadaama ay amniga dalka hadda mas'uul ayada ay ka tahay mudaharaadyadaasna ay la socoto runtii dhaqdhaqaaqooda amniga dadka mudaharadayaashana iyada ay mas'uul ka noqoto si aysan u dhici qalalaase iyo qas oo amniga qalqal gelin karo taas markuu waxay runtii suurto gelinaya in banaanbuxu ku dhaco wada nabdoon meelo loo cayimayna ay dadku ay ku banaanbaxaan dowladuna ay korjoogteyntaas ku samayso iyo ilaalinta badqabka dadka mudaharadayaasha haddii marka xubnaha hadda mucaaradka ee qorsheynaya dibadbaxaas hadday diidaan in dowladdu ay la socoto maaragtay muxuu ahaay amniga mudaharadayaasha iyo goobaha loo cayimay hadday diidaan dowladdu waxay marka xaq u leedahay inay joojiso guud ahaan banaanbaxaas oo ay ishortaag ku samayso sababtoo ah waxaa ka dhalan karo banaanbax sidiisoo markii banaanbax la qorsheeyo waxaa ka dhalan karo waxay tahay falal amni darro oo ka baxsan xindaabka dowladnimada oo runtii ay adkaa karto in xakameyntiisa iyo la socodkiisa ay adkaato marka saa darteed waxaa aan ugu baaqaynaa dowladda inay xil iska saarto amniga guud ahaan dibadbaxayaashaas haddii laga hor yimaado marka talooyinkaasna inay dowladdu xaq u leedahay inay banaanbaxyadaas kansasho iyadoo isticmaalaysa markaas awood dowladnimo ay ishor istaagto taas marka waxay keenaya in beel caalam iyo cid kale aysan ka hadli karin oo lagu ixtiraamo dowladda Soomaaliya maadaama ayada hadda ay dalka ka talinayso oo aysan jirin dowlad kale oo xukunka kala wareegtay hanaan sharci saa darteedna waddanka hadda mas'uulka ah laakiin hadda ay tahay dowladda joogto mid hadda dalka mas'uulka ah amnigana uu ka saaran yahay mas'uuliyad iyada taasaan runtii aan kula talinaynaa dowladda guud ahaan hanaankaas aan sheegay ayaa runtii u furan maanta inay samayso dowladda Soomaaliya oo marka hore in dadka hadda u xiran dowladda la sii daayo ay ku jirto gabadhii Sacdi Bijaaj dad dambana aan la xirin loo diro beesha caalamka warqado loo sheegay in dowladdu ay u taqaanaa diyaar u tahay wada hadal iyo isqancin kadibna xubnaha mucaaradka loo fidiyo gogol nabdoon madaxweynuhuna oo ka hadla arrintaas sheego inuu maaragtay gogoshaas isaga ku baaqay dowladduna ay qabanayso Soomaalina ay wada hadlayaan iyadoo beel caalam aysan ku dhex jirin intaas ayaa runtii asal ah banaanbaxana saas loo maareeyo taas marka waxay keeneen in wado saxa ay wax walba ku socdaan wixii marka caqabadaha ay imaanahayna saa looga hortago ayaa habboon si amniga iyo maaragtay muxuu ahaay nabadda la haysto hadda aysan faraha uga bixin arrinta kale kusoo gabagaynaa waxay tahay oo muhiimadeeda iska leh oo aan xoogga saarayo ama carab ku adkeynayo arrimaha doorashooyinka galmudug inay dowladdu faraha kala baxdo oo dadka reer galmudug iyo 11 qabiil ee halkaas degan ama beero loo daayo talada reer galmudug cidda ay rabaan ay maaragtay muxuu ahaay doortaan hanaan sharci ay maaragtay muxuu ahaay ku socota arrintaas dadka reer galmudug ay maaragtay taladeeda iyo cidda ay dooranayaan loo fasaxo maxaa yeelay tartan furan ay noqoto haddii dadka reer galmudug ay madaxweynaha hadda runtii joogo Axmed Cabdi Khaalid Qorqor inkastoo wax badan oo ka qabtay galmudug oo guulo waaweyn oo ka keenay oo runtii bilicda iyo dhismaha iyo maaragtay dowladnimada galmudug oo runtii meel wanaagsan gaarsiiyay haddii mar kale asiga la dooranayo iyo haddii musharax kale la dooranayo intaba in talada galmudug
dadka reer galmudug loo daayo looga dambeeyo lagu ixtiraamo maamulka hadda joogo madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor hogaanka u yahayna lagu ixtiraamo galmudug doorashadeeda faraha looga qaado madaxweyne qorqor loo daayo talada galmudug hanaanka maadaama hadda asiga oo madaxweyne ka yahay hanaanka oo marsiiyo iyo sida dadka reer galmudug ay wax u rabaan iyaga la iskugu daayo la isku simo ayaan ku baaqaa aysan dowladdu faragelin iyo gacmo gacmeyn aysan ku sameyn si arrintaas aysan u saameyn dowlad dhiska Soomaaliya ayaan ku baaqaa marka aad u mahadsantiin Roshak subscribe gareeya ku soo xirma fiidiyoga meel la gaarsiiya bye bye